Halkani waa magaalada Winamika ee galbeedka gobolkaasi Nevada. Inkastoo ay tahay magaalo aad iyo aad u yar, haddana waa laf dhabar dhaqaale oo uu gobolkani leeyahay khaasatan dhinaca beeraha ama agribusinesska. Haddaba hareeraha magaaladan oo ah dhul saxare ah isla markaana buuraley ah una eeg saxaraha gobolka Bari ayaa waxa la geliyay juhdi iyo waqti iyo qalab iyadoo markaas kadib laga soo saaray dhul beereed aad iyo aad u tiro badan oo ah inta ay ishaadi qaban karto. Dhul beereedkan ayaa waxa u sabab ah laba shay. Kow waa biyo, labo waa qalab. Biyahan ayaa waxa soo jiida matooro dhulka hoosteeda ka soo jiida kadibna waa la macaaneeyaa, kadibna waxa lagu waraabiyaa beerta qaabka loo yaqaano center pivot irrigation. Haddaba laba ganacsade oo cadaan ah oo Mareykan ah ayaa dhulkani maal geliyay iyagoo ku beeray ugana faa'iideeyay isla markaas dalaga loo yaqaano baradhada. Baradhada oo sida aynu wada ognahay ah dalag aad iyo aad u dhib badan ayaa halkani laguma beero ee kaliya ee waa lagu warshadeeyaa isla markaasna waa lagu dhaqaa kadibna packet garaynteedii ayaa imaanaysa kadib waxa imaanaysa in ay tareeno u qaadaan suuqyada ama goobaha looga baahan yahay ee toos looga isticmaalo. Tan ayaa laf dhabar u ah dhaqaalaha gobolkan. Haddaba halkan waxa ugu taala sidoo kale guri ay dhigtaan qalabka beeraha, cagaf-cagafyada iyo qalabka kale ee beerta looga baahan yahay ee laga isticmaalo. Ma ahan guri cagaf-cagaf iyo warehouse kaliya ee waa guri deegaan ah oo ay u soo dalxiis tagaan labadan nin. Haddaba aragtidaada maxaad is leedahay Soomaaliya way ka baran kartaa meeshan?